gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baasha Maxamed Faarax ayaa socdaal ku soo gaadhay jiid hore ciidamada Soomaaliland ay ku sugan yihiin waxaana socdaalkiisa ku wehelinaya Professor Axmed Ismaaciil Samatar gudoomiyuhu wuxuu salaan sharaf ka qaatay qaar ka mid ah ciidamada Soomaaliland waxaana uga warbixiyay xaaladda jiidda iyo ciidankaba taliyaha gabaray ciidamada Soomaaliland taliya Cali Barre koobaad 2018 wuxuu soo degay jiidda Tukaraqeed wuxuuna ku degay nabadgelyo iyadoo uu ku degay rabitaanka deegaanka wax allaale wax dhibaato ah oo ka jira deegaanka waa nabadgelyo ayuu ku sugan yahay iyo gobolkuba milishiya beeleedka Puntland waxay isku dayeen ilaa 7 jeer inay soo weeraraan ciidanka qaranka laakiin ciidanka qaranka ayaa dulqaad muujiyay jananka ciidanka militariga Soomaaliland Nuuxtaani ayaa sheegay in ciidamada militariga Soomaaliland ay deegaanka Tukaraq ku joogaan rabitaanka dadka deegaanka ilaa halka aan joogno 22 sano ku nimid 22 sano marba meel soo degan waa burco la soo qaado international community halkan ay ogol yihiin madaxweynaha naamirkeenu halkaas nagu siiyay bal waxa haray ha haro laakiin nabad Tukaraq mid waxa weeye ciidanka qaranku sida looga dhawaajiyay cid ma gardaraystaan laakiin sidoo farayada suurka Jamhuuriyadda Soomaaliland cid ku soo gardaroota qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayay jawaab siiyaan sida loo yirina nabad ba aan ku baaqnaa laakiin cidii nabadda soo jiida jawaabtii ay sii jireen ciidanka qaranku dhankiisa gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayr Dirir ayaa isna goobtaasi ka hadlay isagoo sheegay muddooyinkii dambe ay joogtay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool inay ka fuliyeen horumar ballaaran oo la taaban karo mashaariic fara badan oo jananku qayb ka dhawaajiyay ayaa hadda gobolka socota oo xukuumaddu ka wado gaar ahaan magaaladan ama deegaanka Tukaraqeed hadda waxaa ka soconaya 3 mashruuc oo waaweyn oo ay ku baxayso lacag ilaa $700,000 ah MCH-kii ama centralkii loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka madaxweyne ku-xigeenka ayaa noo dhagax dhigay maantana waa dhameystiran yahay shaqadii baa ka socota waxaanu jecelnahay insha Allah taala hadda waqti waa insha sii martaan Baasha Maxamed Faarax gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland uu dhowr mar ugu baaqay maamulka Puntland nabadgelyo balse aanay aqbalin waxaana kale uu sheegay in ciidanka Soomaaliland joogi doonaan deegaanka Tukaraq madaxweynuhu wuxuu ku baaqay xabad joojin wuxuu ku baaqay nabad qoladan reer mudug waxay u yaqaaneen haddaad tiraaho nabad iyo aan nabadno dagaalka joojino waxay u yaqaaneen daciifnimo u yaqaaneen nimo laga baqay ayay isu qaateen maalmo dhaweedo madaxweynuhu hadlay waxay yiraahdeen haja keela cunti cabaata madaxweynuhu nabad buu ku baaqay maaha macnaheedu nabadda lagu baaqay waxa weeye dalkan inuu joognaa waa dalka Soomaaliland lagana tagi maayo waan ciidankuna waa joogaya cid kastana waa loo sheegay international community waa og yihiin Professor Samatar ayaa geesiisa sheegay in ciidanka militarigu qayb ka yihiin nabadgelyada wuxuuna maamulka Puntland ugu baaqay inay kula tartamaan dhanka horumarka balse aan loo baahnayn xilligani dagaal si daba dheeraada anagu intaan ka aqaano dee adduunyada iyo dhulka aan joogay 59 wadan baan jaamacadooga ka hadlay ciidamo amba bilaysan noqdaan ama military ha noqdaan meel walba laba amuurood bay u taagan yihiin mid waxa ugu horeyso waxa weeye daafac wadante xadka wadanka inay daafacaan iyo nabadgelyada wadanka gudihiisa inay ilaaliyaan taasi waa ta halkan idin keentay oo de mas'uuliyadda aad garanaysaan halkan idin keentay dadka reer Soomaaliland inta wadanka joogto oo de gudoomiyuhu aad uga warhayo iyo inta yada kumanyaanka ah ee dibadda joogta boqolaalka kuna dibadda joogtana aad iyo aad ayaanu idinku mahadnaqayna nabadgelyo aan daafac lahayna wala iska soo jiiri kolka peace
through strength weeyi waxaynu isku ognahay idinkuna aad noo sheegteen marka allah idinla jiro aad iyo aad kashka iyo laabta ayaan anu idinku farxay markaan idin arkay taasi waa intaas walaalaheen reer Puntland in badan baan ka aqaanaa anu jaamacada wada galnay Cabdiwali Dr. Cabdiwali waan aqaanaa waa xogaabu iga dambeeyay jaamacadaha aad baan isku naqaanaa waa dadkeenni waa dad Soomaaliyeed dhaqan baynu wadaagnaa af baynu wadaagnaa diin baynu wadaagnaa laakiin de laba wadan oo kala qarana ayaynu nahay sida wadamada adduunyada carabta oo kaleba ay yihiin waa dad caraba diinta islaamka wada haysta daris qaarkood ay yihiin laakiin de way wada nool yihiin oo waxa waa laga heshiiyey marka reer Puntland waxaan ku leeyahay tartankay naga dhaxeeya ku dagaalayaan u noqon tartankay naga dhaxeeya ha noqdo ku dhaqaala dhis jaamacada iyo iskuul dhis maxaan ku lahay hawada iyo dhulka sidii loo hagaajin lahaa socdaalka gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland oo ku yimid Jiidoore Tukaraq ayaa noqonaya kii labaad ee midooyinkii dambe ee dagaalku ka jireen deegaankaasi Tukaraq uu ku yimaado Maxamuud Aadan Askar Maxamuud Guray Som News TV magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool